waa waqti dambe waxaan isleeyahay inta badan dadku waa daalan yihiin waxaan rabaa bacdama aan biri tagayo wixii aan soo aruuriyay inaan wax idinkaga sheego oo dhowrka beri aan joogay Puntland maantana ay ugu dambayso Boosaaso oo ah xarunta caasimadda ganacsiga ee Puntland dadka aan la kulmay oo aqoon-yahano leh oo arday leh oo culimo leh oo salaadiin leh oo cid walba leh waxaan isdhaafsanay aaraah fikir iyo ra'yiga qabaan oo loo baahan yahay dalkan in lagu hormariyo oo ah qayb ahaan sababtaan halkan u yimid inaan isweydaarsano inaan wax badan isweydaarsano inaan u kuur galo hawlaha iyo waxa ka jira Puntland anigana aan xog waran idinka siiyo xaaladda guud ee dalka ay ka jirta waxa ay soo baxay dhowr arrimood oo talooyin ah oo federaalka iyo dawladda dhexe la siiyay oo loo baahan yahay inaan runtii ogaano sidee dadku u fakarayaan maxaa yeelay haddii aan ku shaqeyno dadka waxay rabaan iyo waxay ku fakarayaan waa hawl noo fududaatay waxayna ka turjumaysaa inaan u adeegayno shacabka Soomaaliyeed bacdama aan nahay dawlad ku timid doorasho shacabkuna taageeray marka mar walbaba waxa shacabku aaminsan yahay iyo waxa shacabku ay qabaan inaan mar walba ka hormarino wax walba waxyaabaha dardaaranka aan helay iyo talooyinka aan helay waxaa ka mid ahaa in dawladda dhexdeeda ay wada shaqayn yeelato oo siduu shuba sheegay halkan iyo kooxda waa bari Puntland isqabqabsiga iyo khilaafka iyo dhibaatada inay tahay waxa dib noo dhigay naga reebay dawladaha caalamka naga reebay dawlad waa la doortaa madax waa la doortaa waqti yaana leeyihiin iyo mandate laakiin anagu dhaqankan leenahay waxay tahay in dawladii timaadaba aysan dhaafin sanad dawlad waxaan ka wada xukuumadda oo lagu mashquuliyo ama lagu mashquulo 6 bilood oo dawlad la saaro iyo 6 bilood oo dawlad la rido macnaheedu waxay tahay haddii mar khilaaf uu dawladda dhexdeeda ka yimaado inaanan waxba la qaban inaan ummadda loo adeegin wax qabadna hadduusan imaanin waxaa ka faa'iidaysanaya qolada cadowga nala ah oo aan ognahay oo aanan waxba u aabayeelinin shabaabka la yiraahdo bacdama iyagu ay isdhisayaan dawladduna ay ku dhex jirto khilaafaad iyo isqabqabsi iyagu waxba u kordhaya meesha dawladdu ay wax ka dhimayaan marka arrintaasi arrin dad badan ay ka tala bixiyeen oo ay igula dardaarmeen oo yiraahdeen annagu waxaan rabnaa wax qabad dawladdu wax qabataan rabnaa wax qabadkana waxa ugu horeeya amniga ugu horeeya ciidan in la dhiso sida ay gobolada waa bari halkan ay riwaayada aan uga dhageysanaynay haddii uusan ciidan jirin hadduusan jirin ciidan amni ma jiraayo marka wax qabadka waxa ugu horeeya in ciidan la dhiso ciidankaas oo difaaca dalka hadday tahay xuduudiisa hadday tahay baddiisa iyo hadday tahay cirkiisa waxaa ku xiga oo muhiim ah oo wax qabadka ah oo ummadda ay naga sugayso dhalinyarada dalkan joogta 75% kor u dhaafeen in loo abuuro shaqo abuurid loo sameeyo shaqo abuurid in la sameeyo macnaheedu shaqo abuurid marka la sameeynayo waxay tahay in loo hormariyo ganacsiga in maalgashiga loo hormariyo oo ay yimaadaan dad dibadaha ka yimid ama ahaadaan Soomaalida diaspora jira ama ahaadaan dad shisheeye ah oo doonaya dalkan inay maal gashadaan marka haddii ay maal gashanayaan tii hore iyo daba socotaa oo ah inuu dalku amni yahay oo ay nabad jirto
إلا مال أن نبذرين عد مال قشريسة عد لا دقالة قشريسة مجريسو تاسوا مد الله بعد وحيتهاي إن دولدو كشق إن إجارته قبل ذلك إجارته أو أديك لجارسيو سيدا هل كان كم غليسان إن أن رايح لجي إن مشروعية بدن أو حلقة سجايو مركا وأنا وحجرة هدي أن دولدي ده مجري سوماليا الدونك ونوع عونا وحنو سينايو وحلو بهاي هاي إن دولدو جارتو مال والبا أبورتو إن أديك أبورتو هدي أي لسيسو إسبيتالو هدي أي علل قديسو هدي أي سكولو سمينسو هدي جديد سمين سبا ووحنا لقى سوايو أو أن هل كان وجم مغلي حتى أنا مغلي سين إن نلقى سوايو أديك نلقى سوايو إن تنكره أو مهم كأو حيتهاي أو أن أنا مغلي أو يتهاي إن حوجينه ديمقراطية إن ضل كأنه واسعدا وحبا يعني نجح اللعبي لكن وحن برني إن أن بلاونه قاب نبض إن سهول يجينه حكم سكستها كتي مادو haddana dadka waxay sugayaan inay helaan inay codkooda dhiibtaan oo uu dalku u gudbo qof iyo codkiisa u gudbo taasna waa wax runtii aan aad iyo aad aan u maqlaayo oo ay tahay inaan ka shaqeyno dawladda dhexe ka shaqeyso waana u diyaarsanahay haduu Ilaahay yiraahdo in aan soo gaarsiino dalka tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo meel walbaba shacabka Soomaaliyeed ee dibtaan codkooda ayna u codeeyaan qofkay rabaan iyo xisbiga rabaan waxa kale oo aan maqlayaa waxay tahay in aad iyo aad looga taagan yahay khaatiyan 4.5 khaatiyan in looga taagan yahay uu nagu raagay oo arinta dimuqraadiyadda ah la rabo dalka inuu hore uga socdo qaabka ahzaabta oo dadku ay isku raacaan ahzaab aysan qabiil isku raacin ay isku raacaan mabaadi iyo mabda iyo waxay aaminsan yihiin laakiin aysan isku raacin heeb taasna runtii waa waxyaabaha aan doonayno inaan legacy uga tagno dawladihii naga horeeyay waxbay soo qabteen waa soo dadaaleen meel iyo wax soo gaarsiiyeen laakiin xaqiiqiyan waxay nagu qaadatay muddo dheer 17 sano ah iyo nagu qaadatay inaan ka gudubno qaabkan 4.5 ka oo aan u gudubno qaab ahzaaba oo dadku ay isku doortaan waxyaabaha kale oo aan maqlayno waxa kamid ah intaan imid oo ay dadku aad iyo aad noo weydiinayaan federalismka inaan anagu federalism aan barmood gareeyno ama aan horumarinayno federalismkuna kaas oo ku dhisan inay dawladdu xoog leedahay inay dawladdu xoog u leedahay ciidamadeeda dhismaha ciidamadeeda iyo difaaca dalka ay dawladdu ay xoog u leedahay arrimaheeda dibadda oo ay keenayso saaxiibo wax wada qabsi aan la wadaagno oo danteenu isku xiran tahay waxa ay ka hadlayaan waxay tahay federalism midnimada dalka xoojiya oo aanan dalka kala fogeynin oo aan abuurin midnimo waxaan oranayaa federalism loose aysan keenin oo dalku uu dayacan yahay xoogna uusan lahayn marka waxay aad iyo aad ay igu adkeynayaan oo ay ka hadlayaan federalismka la raadinayo inuu noqdo mid dadka Soomaaliyeed walaaleeya oo soo celiya sharafta iyo karaamada dalkeena waxyaabaha kale oo muhiimka ah oo aan maqlayo waxay tahay oo ay tahay inaan la laabto maalgashiga waa sheegay dalka in la hormariyo oo aan kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horeyso beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo kheyraadka kale oo dalkeena dabiiciga oo dalkeena ku jira oo ay kamid yihiin shiidaalka iyo macdamaha kale inaan raadino oo aan u raadino maalgashi shisheeye oo dana ka leh
hawlahaas arrintaasna runtii waxaan aaminsanahay inay tahay waxyaabaha dalkeenna u abuuri kara shaqo abuuris u keeni kara horeyna u marin kara arrintaasi waa arrin muhiima oo aan ka helay dad badan oo dee halkan jooga talooyinkoodaan ka helay walaalayaal intii aan halkan joogay waxyaabaha kale oo aan runtii indhahay ku arkay waxaa ka mid ah waxaa la yidhi isku tashi waa kelmad wanaagsan oo aad iyo aad u qurxoon oo runtii ka yimid dadka laakiin isku tashi aan lahayn leadership ama hoggaan uusan hoggaaminaynin dee waxay iska noqonaysaa hadal waxaa muuqda isku tashiga dadku uu qaatay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas inuu qaatay hoggaankeeda uuna ka dhabeeyey oo ay muuqato waxyaabaha la qabtay ay muuqato xaqiiqiyan ay muuqato waxaan tegey clinics yaan tegey cisbitaallaan tegey waxaan tegey maxaan ku raahdaa dee airbortkii waa tii aan furnay waxaan arkay jidad badan oo la dhisay waxaan arkay waxyaabo badan oo runtii lagu faani karo aanan ugu maaragtay hambalyeenayo madaxweynaha iyo dowladdiisa hawlaha adeega ah ee ummadda soo gaarsiiyeen iyadoo annagu aanan taageerin oo aanan gacan siinin oo aysan federaalka waxba uga imaanin taasna waa leadership dhankiisa ah iyo dadka reer puntland oo isxilqaamay oo ogaaday inay muhiim tahay inay isku tashadaan oo isku kalsoonaadaan maxaa yeele qofka hadduu mar aamino inuu wax qabsan karo khasbiyan waxaa ah ummadaha kale xitaa inay usoo gurmadaan iyada naftigeeda waxay tahay runtii wax annaga dowladda inta kale maxaan ku rahdaa laga baran karo laakiin annaga waxaan ku darsanaynaa oo kale isku tashi meeshaad tidhaahdeen iska fogeyn ama iska celin shabaab oo ay tahay inaan qaadano maxaa yeelay haddii aadan nabad lahayn oo aysan meeshii nabad jirin dee isku tashigu waa adkaanaya maxaa yeelay meesha u baahan in wax laga qabto haddii ammaankeeduusa fiicnayn xaaladdeedu ma fiicna marka walaalayaal runtii aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta wanaagsan oo diiran oo aniga wafdigayga aada nagu soo dhoweyseen taasoo runtii mar walbaan idhaahdo waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad jecel dowladnimadooda jecel maxaan ku rahdaa martida jecel midnimada soomaaliyeed runtiina waa wax aad iyo aad iyo aad iyo aad noo soo jiitay oo qulubteena soo jiitay oo aynan iloobaynin aniga iyo wafdigayga waxaabaan isleeyahay bil walba amaa soo laabataaba bil yaanan dhihinay at least 6 bilood mar waa soo laabanaya insha allah hawlaha adeega oo runtii aad ka sugaysaan federaalkana waxaan ku dadaalaynaa puntland waxay xaq u leedahay inaan u keenno maxaa yeele cadaaladdaa ku jirta waxaan rajaynaynaa naftigeennu in wax badan ay noo kala furfurmaan bacdama aan adkeennay oo aan bilownay istaraatiijiyo cusub oo arrimaha dibadda ah oo aan kula macaamilayno dowladaha shisheeye ama dowlada saaxiibo aan nahay oo raba inay soomaaliya development ama horumar keenaan qaarkoodna rabaan inay investment ku samaystaan marka xaqiiqatan waxbaa noo bilowday waxaan rajaynaynaa dowlado badanna inay ku daydaan hawsha noo bilaabatay oo runtii aan ka helayno macaawino dowlado aan walaalo nahay oo aan saaxiibo nahay oo caalamka ah oo runtii raba soomaaliya inay cagaheeda mar kale ku istaagto waan uga mahad celinaynaa dowlad kasta oo runtii gacanna siisa insha allahna hadduu eebba yidhaahdo wax alla wixii na soo gaara waa khasbiyan inaan dalka intiisa kale aan u qaybinno annagoo fiirinayna baahida jirta iyo degaan walba baahida ka jirta iyo xaaladda ay ku sugan yihiin hadday u baahan yihiin jidad oo aan tabarteeda leenahay inaan ku caawinno hadday tahay clinics iyo caafimaad waxaan kale oo aan qorsheynaynaa in aan bacdamaa dee ay badatay abaaro soo noqnoqda inaan si aan uga hortagno abaarahaas inaan annagu gacanteena aan ku qabsanno sidaan ceelal aan u qodan lahayn intay rabta ha ahaato aan ceelal u qodan lahayn
annagoo kaashanayna dowlad goboleedyada annagoo kaashanayna hadduu eebbe yidhaahdo walaalayaal mar koowaad iyo mar labaad waa mahadsantihiin sida sharafta leh oo wanaagga leh aad noo soo dhaweyseen ilaahay idin karaameeyo sharaf baad leedihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh